السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديال كسر دوّا برنامج كنيري جابوان كيوده فنان كوان ما بيدن كسر جود بالنوتيفيكيشن كقرن كش جمهورية الصومال لان حرونتي السمقالة لندن وحى برنامج كمرتين وجاه أبوان محمد إبراهيم إسماعيل وهراء إن بدن وقد دعوتين شاشة التلفزيون كقرن كالصومال لان أنا جو حلقي هراء راعينا مرات كي هراء راعينا وما أنت ينوسو دياري هسيه هراء ينوفن غينا يهسلم مده هذا بالواقع أنا ساكن بحو محمد كسودو مهتسند ليلة أن مركلة وحسلام يا داود يا شنا غالقة أن كحرن تي في قرنكا أن وارون أن مانتا وحنشعلها إنه نكهذا الله أن هس أنا ما هس كشكينا يا ورحتها بيئة أن من نيتشر كا dhulkeena hadday xoolaha noqoto hadday deegaanka kale dhirta iyo ciid iyo dhulka noqoto waa hees jacayl heestan waxaa hal abuuray oo ay maskaxdiisa ka soo maaxatay abwaankeena qaaliga Axmed Salibaan Bide waxaana ku looqeeyay fanaanka isaguna ka dhicira qaaliga Maxamed Axmed Kule heestani waa hees dad badan waxaan u maleynayaa qof af Soomaaliga ku hadlo aan heestan aqooni inuu yar yahay waa heesta sida geed caleen leh dadku yaqaanaan in la yiraahdo heestani waa 3 bayd 3 bayd Axmed sida farshaxanimada leh uu sameeyay mid wuxuu kaga sheekeynayaa haradii biyihii xareedii shimbirihii sidaanu ka arki doono ka dhahan doono heesta mid wuxuu kaga sheekeynayaa guuyadii oo meesin ka mid ah meesinkii meesinadii xoolaha gamaankii baa ku jira mid wuxuu kaga sheekeynayaa wuxuu isaga gudbayaa guban iyo hawd soo garan heestan waxay lahayd sheeko oo iyaga oo riwaayad sidoo fanaaniin badan iyo abwaano badan isugu jira ayay yimaadeen webi qurux badan oo de burqanaya xareed burqanaya iyo beero iyo waxaan filayaa un de dhulka webiyada marka dhulka koonfurta ayuunbuu marka ahaa oo meeshaana waxaa ka baxa dee anigu waan arkay cambaha geedkan cambaha la yidhaahdo babayga ma aha camba lafka la yidhaahdo waa geed aad u weyn aad u baaxad weyn marka oo sida gubkeennii oo kale ma garanaysaa intuu heemaalka leegyahay weliba ka caleema badan oo ka hamash badan oo markuu midho bixiyana midho aad iyo aad u tiro badan oo iska soo daata marka dambe ayuu bixiyaa oo casaan iyo marka horena hugur iyo marka dambena casaan oo qurux badan marka meel caynkaas oo kala ah oo aad u qurux badan baa leeyri ayay joogeen dabadna abwaan kamid ah abwaanadii la socday ayaa yiri baa leeyri waadigii jacaylka tirsanayay sheeko soo dadkan waxba iskuma seegana waaran ka qacsi maxad ka oran lahayd dhulkan isku horay marka abwaan Axmed Salibaan Bide inuu yahay dadka jacaylka ehelka oo ah isaga afkiisa ka qira inuu soo maray oo muddo dheerna uu jacaylka inkastoo markii dambe dee ilaahay nimcadiisa uu ku guuleystay oo guursaday gabadhii uu inta badan jeclaa heestan sida geed caleen gabadhaas uu tiriyay markii dambe ooridiisa noqotay waxaan igu maqaalaa in marka riwaayadna inuu ku daray oo inay riwaayad ku jirto inkastoo aan u baahan tahay sheekada inaan markale dib ugu noqdo
wuxuu yidhaahdaa waxaa ku jira meelo yaryaroo matalan xarfo af soomaaliga suugaanta ama gabay ha ku jiraan ama heesa ku jiraan markhaati leh waanigii maalintii hore ku lahaa waa inay isu markhaati furaan waxaagu haddaad maqasho hawray ama aada maqasho baldhiidhay ama galdhiidhay sida galdhiidh iyo baldhiidh waa badaal iyo dabaal oo kale uun isku mid oo xarafkun qaafiyadii dee laba nin oo walaala ahoo ilaahu naxariistay cali salibaan bide iyo axmed salibaan bide ayaa laba heesood kala sameeyo midna baldhiidhay buu isticmaalay midna galdhiidhay ayuu isticmaalay hawrka haddaad maqasho waxa weeyaan dhul ama caleentu ay biyo ka dheregto marka caleentu ay biyo ka dheregto ay dharqato ee ay dheregto waxay noqotaa wax ookan oo xitaa yani de marka caleenta saa laysugu laabay la jabiyo way sanqaraysa sanqar bay samaysaa dhac bay tirahdaa moogta biyo yar baa kasoo waad aragtay biyo yar baa kasoo firdha hawrina doo adiga arko waxa weeyaan hawre waxa weeyaan meel inta isku baxday dhirtii inta isku baxday iswada gaadhay seentii iyo maxaan ku dhahdaa salooshii iyo saarkii ay isku wada baxeen oo ay iswada gaadheen oo dee aan dadna marin xoolana marin bahalana marin waxbana marin oo isku baa la yidhahdaa hamash isku noqotay labada arrimoodba waxay ku suurta galaan oo keenaa waa biyo joogta ah haddii meeshaasi aanay biyo joogtaa lahayn one way oo diada ma dhacdo arrintaasi heesahan heestan aan ku sheegay heesa fara badan oo laga yaabo xitaa dadka daawadayaashii markay dib u dhehdaan ayay ka dhexeli doonaan ama waxay ka sheekeynayaan hadduu geed hawre yahay hadduu kayma hawre ay tahay hadday tahay dhir baldhiidhay hadday tahay ama galdhiidhay tahay waxay ku yaalaan ama durdur ama webi ama meel biyo ah oo hara oo biyo iska joogaan 24/7 365 sanadkii iyo bishiiba ay fadhiyaan biyahaasi oo aanay guurayn wuxuu yidhahdaa sida geed caleen loo ubax guudka qariyey oo gooni laamaha ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midha aleedahay geed caleeniyo ubax guudka qariyeen goonilaaba ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midha aleedahay badanka waxaa laga yaabaa in sidaa marka de loo yidhaahdo ay dadku iska fahmaan yes laakiin markaa inagu waxaynu uga dan leenahay waxa weeyaan isku xidhnaanta suugaanta siday isugu lifaaqan tahay iyo midhaha exactly waxa weeyaan geedku marka ay oo midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa leedahay yani waxa weeyaan geedku soo wareegi maysid geestaad iska taagtaba midhaad ka goosanaysaa yani waa hawl yari micnaa ku jira oo soo gandoodo galka faraqa soo daray hawray marka lagu yidhaahdo faraqanu markaan kaa dhex galay soo daraya waa biyihii ka hooseeyey yani waxa weeyaan bal anaa ku sheegay biyihan kulahaa joogtada ahaa xagga dambe isla beydkan gudihiisa xagga dambe ka gelaynaa dhirtu waxay u baxdaa laba riisan bay markay dhirtu iska baxdo ee korto laba riisan bay u baxdaa mar waxa weeyaan waxay u baxdaa dhirta oo u dheeraataa waxa weeyaan waxay tartan kula jirtaa geedaha kale geeduhu markay iska gara baxaan waxay ku nool yihiin oo waxaa jira wax la yidhahdo photosynthesis la yidhahdo englishka lagu yidhaahdo oo habka ay dhirtu cuntada ay u karsato ah geedku wuxuu u baahan yahay iftiinka qoraxda si uu u noolaado geedku hadduu geedo kale ka dhex baxo dhirtaas ka dhex baxday geed weliba wuxuu doonayaa inuu isagu ka murbaxo intuu ka murbaxo uu qoraxdii arko si uu u baxo inuu qoraxda arko tartan baa lagu jiraa marka geedkii hadduu geedku caarada la yaro baxo yaro dheeraado geedka uu hadhaynaya ogow qorax ma haysto wuu hagaasaya geedkaasi ilaa qoraxdu ku baxaya geedkii markaa isna challenge wuxuu gelayaa inuu kii kale uu ka dheeraado taasi waa one reason the second reason waxa weeyaan marka ay nimcadu xad dhaaf tahay meeshu ee geedku aanu u baahnayn geedku ama kor buu u baxaa ama hoos buu baxaa geedku marka uu ku yaalo meel abaar hoos buu baxaa ma dheeraado arkimaysa matalan banaanadeena saraar bancadde
tuuyo gaaroodi meesha doonto tag xadeed dhirtu ma dhaadheera dhirta banaanada ka baxdaa way gaaban tahay why waxa weeyaan geedku intii energy uu bixi lahaa wuxuu korinayaa xididkii baa sii aroorayay si uu biyo u gaadho marka geedkii energy cuntadii uu sameeyay energy kor ugu bixi maayo banna uu ku yaalaayo geedo kale uu la tartamayo deeftiinkiisa ka gudbaya ma jirto marka khasab waxa ku noqonaysa geedkii inuu hoos u baxo biyo doonto laakiin geedku markuu meel biyo ah 40 saacadood ku dhex jiro ku nool yahay the only way is up korun buu aadaya marka uu iska baxay ilaa marka dambe waxa jira scientific gravity-ga ama cufisjiidka wax waliba marka ay xitaa bini aadamku haddaad iska dheeraato aakhirka waad soo qalloocsanaysaa waad soo godaysaa gravity wax la yidhahdaa jiro oo marka ay awooddaada hoose ee ku tiirinaysa iyo dhumucdaada sare ee baxday markay kala xoog bataan aakhirka waad soo ciiraysaa marka geedkii markuu iska baxay ee midho iyo caleen iyo ubax wax kastaba ay buuxiyeen dabcan dee laamihii way soo gandoodsanayaan marka wuxuu daray way soo noqonayaan wuxuu daray gandoodsiguna waxa weeyaan marka aad intaad istaagto aad matalan sidaas oo kale aad usoo foorarsato aanad rugaga iyo laabine saa wuxuu soo gandoodsan matalan qof buko oo kale intaad timaado madaxa taabato oo kale saas oo kale baleha waan soo gandoodsaday ama adoo xitaa hurda haddii intaad soo toosto aad saasaa usoo yaro fadhiisato oo kale waad odhan kartaa marka farqi laamihii sidaa awel ahaa ayaa soo gandoodsaday oo galkii ayay farqi laantii mi wada qunsina caaradii hore ayay galkii saa u darayaan sida geed caleen loo ubax guud ka qariyey oo gooni laamaha ay midibe geesteed hoogaan isgaadhiya guntin midhaaleeda oo soo gandoodo galka faraqa soo daray oo gacan barwaaqo ah wuxuu yidhi godan barwaaqa durduraan gurayniyo gacan webi ku yaal yani biyahan sheegaya waka eg durdur aan gurayn webigu marmarka qaarkood buu wadi arkay oo mara yaraadaan biyo mara fataha mara weyba guraanba inka shabeello oo kale iyo waqtigan roobku diin uu qalanaya ma garanaysaa kala weyn juba iyo shabeello caalamka oo dhan baska sidaas ah marka laakiin kani uu leeyahay geedkani ku yaala ma guro biyahaasi waa joogto waxay ka markhaati furaysaa geedkan iska baxay iyo de nimcadaan sheegayay ma garanaysaa marka waa durdur aan guraynin iyo gacan webi durdurkii iyo labadii webi isu imanayo kale durdurkii oo soconaya iyo gacan webi de godankana waad garanaysaa waa meel biyo qabatin waa godanku waxa weeyaan meel dooxada waa meel weyn oo dhulka ka hooseyso oo yani oo ama dabayl ha jirto ama dad ha jiro geographiga waxaa lagu yidhahdaa glaciers-ki berigii barafka dunidu dhalaalay ayay dooxooyinkaasi samaysmeen oo dhulka goosta bay yidhaahdaan laakiin de inagu waxaanu leeyahay ilaahay baa sidaa u abuuray ilaahay baa dooxooyinka caynkaa u abuuray godankuna waa meel iska kooban sidaa dooxooyinka waaweyn maaha waa meel kooban oo dee shielded ah oo dabayshii iyo aafaadkii kale oo godan barwaaqo ah durdur aan gurayn iyo gacan webi ku yaala iyo jiilaal midab guurin baa tahay example marka inantaasu ku maseynaya waa ekeeya marka waxa weeyaan gabay uu tiriyey waxaan xusuustaa cali sugulle dun carbeed oo ka sheekeynaya gabayadiisa mid ka mid ah ayaa wuxuu soo qaatay maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yidhi waxaan ka soo xigtay ruux dumara oo maansa tirinaysa haddii geel dun leeyahay gobina meecaado garanaysa oo kale gobaa miicaad leh geel baa ilmaha kursada exactly marka isaguna waa ka haddii geel dun leeyahay gobina meecaado ka soo qaatay qofka quruxdiisu ay asalka tahay usii qurux badnaadaa un ma midab guuro uu sii qurux badnaadaa un laakiin qofka fake ay tahay quruxdiisu de waa qurux dukaantaal intii damisku soo intuu magaranaysa qofka damisku soo ragii dumar imika waa la isticmaalaa laakiin waxaad arkaysaa qof aad taqaanay 10 jirkiisii oo qurux badnaa baad 20 jirkiisii arkaysaa oo qurux badan 40 jirkiisii baad arkaysaa wuuba kasii qurux badnaanaya maalinta ka dambaysa
quruxda bay yidhahdeen Frenchigu iyo baalkan jiiska la yidhaha jiiskuna marka uu sii majuure uu sii raagaba wuxuu sii noqdaa tasty uu sii wanaagsanaada ungu iyo jiilaal midab guurin baata waayahay maxaan ku idhaahdaa gabadhihay kalgacalba goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhihay kalgacalbaad goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa waa every time day night waa yani maaha jacayl baan ku qaba maaha jacaylka ila wad maaha yani waa wax markaan saa ku eegaba igu sii kordhayay waa igu sii kordhayay waxbaad saa iigu abuurtaa waa liigu duxaa mar alaali markaan indhaha ku saaro ayuun baa la ibame ma jooge ibame ilaahay u naxariista abtigay cabdiltaagaysu sameeyay waxa ku jirta walaa waxa ku jirta ibame soo maalmaha nafteeda muu miran jacayl marka beydkaasi waa beydka uu kaga sheekeynayay geedka quruxda badan ee cajaa'ibka beydka labaad wuxuu ka sheekeeyaa waa kan ku lahaa waxa weeyaan guban iyo hawd dhulku sidiisaba generally marka la qaybinayo inaga dhulkeenu deegaankeenu marka la qaybinayo wuxuu u qaybsamaa uun waa oogo iyo xeeb baa la yidhahdaa dadka qaarkood way iska saalaan oogo iyo xeeb ay yidhahdaan guban iyo oogo ay dadka qaar yidhahdaan laakiin xaqiiqatan marka lasii kala furfuro wuxuu u qaybsamaa dhowr oo ha kala yaryaraadeen waxaa jira waxaa la yidhahdaa xeebta waxa weeyaan dhulkana iminka dee magaalooyinkeenu ka dhisan yihiin waa dhulka ugu baaxadda yar marka la eego xeebtu waa dhulka ugu dhumuc yar waa almost suun tahan waxaa ku xiga dhulka gallanka la yidhaha gallanka waxa weeyaan xeeb gallan guban cal iyo oogo marka waxa weeyaan gubanka iyo xeebta dhulka u dhaxeeya ayaa la yidhahdaa gallan gubanku wuxuu leeyahay waa dhul mamacda iyo dhagaxa shiisha la yidhaahdo leh magaca ayaa sharxaya waxa weeyaan dhul had iyo goor u badan kulay oo de waa intaan dusha loo soo bixin inaga wadarto silsiladan la yidhaahdo buuraha golis la yidhaha ayaa wadankeena markay halka Ethiopia kasoo gasho I think buura meegteeda kasoo gashaa dabadna waqooyigii u wareegtaa xadku halkaas horta ka bilaabmaa inta badan ilaa la gaaro wadankaaynu jaarka nahay Soomaaliya especially maamulka Puntland markay halkaa ka timaado waqooyiga ee Hargeysa ka martaa maxaan ku idhahdaa berbera waxa weeyaan halkaa Sheekhiyo ay ku yaalaan buuraha Sheekhiyo waxay gashaa buurta Wagari halkaa dabadna waxay gashaa Karin Cunqori iyo Ruguude iyo dhulka la yiraahdo xiis bay tagtaa xiis bay markaa xagga beriga ka martaa Mayd watalaas qori halkaa ka gashaa ilaa Boosaaso ilaa Caluule iyo Qandara ay socotaa ilaa baan jecelahay Caluule iyo Qandara wada socotay midahan Qandara baan jecelahay ayay gaadha marka dhulkan ka sheekeynaya waa dhulkan imika ka sheekeynaya abwaanku uu ka sheekeynaya halka heesaha badankooda heesa badanna waad arki doontaa gubankaasi uu ku jiro oo xitaa heestii aynu barnaamijka hore kaga sheekeynay geygii adigana midba gees ka daawada dee beedadka xasan qaada iyo beedka labada xasan qaada iyo wuxuu ka sheekeynayaa gubano bil roobka hayay waxa xasan ka sheekeynaya marka dhulka cashihi waa dhulka markay abaarta tahay dadku ku baxsado oo badanaa waxay leeyihiin biyo joogta ah iyo dhulkan way ka sareysaa cashiyo dhedada iyo qabowga iyo waxaas adigu dhirtu way ka raaqraaq dheerta ka raaqraaq dambaysa marka wuxuu yidhi sida gubanka qaarkii hadda guban oo dhan ma aha sida gubanka qaarkii dhul gargoorku siman yahay ama maar galdhiidhay oo gubatiyo ku taal hawd yacni gargoor wanagii uu soo noqonaya heesaan uu isu markhaati furayaan badankooda isu markhaati furayaan gargoor dixi labadu way ka baxaan dixida iyo gargoorkuba oo qurux badan aniga way sawirantay waan maray dhul badan deegaankayga dhulkan ku dhashay baa runtii ciid madow waan xusuustaa iyo dhagax mamac ahoo madow marka roob helo ay tigaadaasi baxdo ama gargoorkaasi baxo contrast bay sameeyaanoo yani waxay noqdaan midabkan akhtarka ee khiyaariga la yidhahda khafiifka ah iyo ciiddaa madow iyo dhagaxaa madow iyo buurihii iyo dhul runtii aad u qurux badan aad dhulkan wada qurux badan yahay laakiin marba meeshaad markaa joogto ayaa meesha kale kasii qurux badan
sida gubanka qaarkii waa dhul uu garanayo de soo arkay ileen wuu tegey Axmed waa kii Cergaabana macalinka ka shaqayn jiray iskuulkii Dayaxa macalinka ma wuxuu ka shaqayn jiray iskuulkii Dayaxa oo fankaba ka bilaabay heesii ugu horeeyay halkaas ku sameeyay sida gubanka qaarkii dhul gargoor ku siman yahay ama maad galdhiidho gubatiyo ku taal hawd gubatana waxaan u maleynayaa de kulli gubatooyin kale way jiraan gubatada halka loo sii maro xaafadeena kaftanaayga marka burco laga tagay koonfur bari la qabanayo hawdka loo socdo hara halka ku taalo gubata xil la yiraahdo anigu taas aan aqaana marka inay gubatada tahay oo laga yaabaa gubata kale uu og yahay tahayna waa laga yaabaa sida gubanka qaarkii dhul gargoor ku siman yahay ama maad galdhiidho gubatiyo ku taal hawd oo laba gardhood oo barbageesu seexday waxaan xusuustaa daadigu leelay maad soo gaadhinay anigu waxaa soo gaadhay iyadoo ragga timaa jilicsanay bahal cawaandi la yidhaahdo bahal cawaandi la yidhaahdo ay jexdaan halkaa intay dhinaca bidix inta halkaas saqafta geliyaan ayay intaana dhinaca u feedhaan intaana dhinacaas u feedhaan ninkaasi maalintaa uu cawaandiga jeexdo duqsiga madaxiisa isku taagaa waa 6 bilood xariga soo badkara si gooni u socdaano isqalluuciyaano maalinta ay cawaandi bawjaa qurbahan miyo qaarad liif moodo oo inta cawaandi saxdan jeexan kari waayo raislan tagan laba xiray oo leen meesha noqotayna waan arkay cawaandigi taas u dambaysanay marka oo laba gardhood oo barbagees u seexday waxaan xusuustaa raaliga yar oo halka uu ku yara hakanaya waa sax waa loo baahan yahay heesahan badankoodu waxay ii sameeyaan xusuus waxyaabada markaan yaraa anigu waxaan ahaa dhalinyar dadkii nasiibka u lahaa inay ku soo barbaaraan dalkii hooyo fasaxa marka iskuulada naloo xidhay waxaanu qaban jiray Cergaabo marka iskuulada la furana waxaan kusoo noqon jiray Hargeysa iskuulka dhigan jiray anakoo yaryar deedna waxaan xusuustaa saraar banka saraar la yidhaahdo markay abaarta tahay dhulku umanayahay ma qurux badna banoo dhamme laakiin marka uu roobku doo nimcadu timaado ilaahay baan ku dhaarto quruxda meesha waana wuxuuna ka mid yahay bananka aan arkay bananka hawdka ku yaala badankooda maan arag xawuga iyo maan arag kuwa laakiin saraar iyo bancadde iyo xadeed iyo waa dhulkan mari jiro almost saddex goor afar goor baa sanadkii mari jiray waa sax waxaan xusuustaa waqti ka mid ah waqtiyada ayaa waxaan ku soo beeganaa hadii goor waxaan ku soo beeganaa markaan ka soo noqonayno bari waxaan ku soo beeganaa dayrta markii iskuulada la furayo ayaan hadii goor ku soo beeganaa waxaan xusuustaa baabuurtii baa halka habeenkii ku hakatay baabuur kaliya baan halkaas aan habeenkii ku hakano dhulku roob daad meel kasta roob baa da'ayay almost 7 cisho aan kala qaadin cawsku inaan yar baan hay marka adigu naqano xoogaa ilaa meelahaas aan la ekaan cawska halka ku yaala caashay garbahaygu ii jooga ha dirqi baa leeyahay hadaan ka yara dhaqaaqo halka gaariga labada taayir la heli maayo waad lumays marka meel yaro iska banaan baa baabuurkii la joojiyo waxa la yiraahdaa halkan u saxanina inta waagu bariyayo waana u goor dambe waa ataniiriya weeyaan cirka caad ma saara waa la seexday marka shindihii aanu sidanay bari yarahan baa galoorin jiray mariya lagu guri jiray ayaa mid la idigo leeyahay yiri barko halkan aanu isdhinac jiifna kulligeeyo anigu deena yar baan ahayo reer magaala ku koray oo weligii miya arag marka waxaan oo dhammaan aniga waxay yihiin Rio film bay yihiin ku soconaya mana doonayay inaan 1 second miskarayo marka maxaan seexanaya intaan indhaas ku yara qabto mid saxday iska dhigay markay dadkii seexdeen ayaan kacayo shindadii baan dhakada ka fuulay ilaa ma arkayo wax kale hadii aan dhulka fadhiisto waxba ma arkayo moogtay shindadii baan dhakada ka fuulay wacdo waxa dhacaysa leyd qabow macaan baa dhacaysa caashay leydhaasi waxaad moodaa sida mawjada badda Soomaad arag ayay bari bay ka soo dhacaysaayo sida intay u soo dhacdo ay geedaha way seexisaa hirka leydhaah soconaya ilaa dabayl ma jirto saxar ma jiro marka wixii soo dhaca waa leyd qabow sidaas u seexisaa markaas inta saa u dul marto ayaa waxaad moodaa dayxuna waa ilaa nin joogi oo dasheed bi iga muuqda aniga iyo dayaxa aniga iyo dhexdayada
ilaa halka ay dadku yidhahdaan cirkii dhulka iska qabsada horizon baa lagu yidhahdaa af ingiriisiga ila waa ban meeshii geed teelteela mooyaane waad arkaysaa wax kasta waan garta ilaa halkaa dayaxa ah uu ku beegan yahay dayaxu ilaa aan halkaa aan fadhiyo intaa noo dhaxaysa ayay sidaa u martaa laydho geeduhu intay saa u jiifsadaan waxaad moodaa ul ama mastarad cad in la marin irinayso cawsku marka uu laydhu ku dhacdo wuu laabmaa halkaa uu ka laabmayo iyo reflectionka dayaxa ayaa isku dhacay markaas waxay noqonaysaa layn dheer oo cadoo ilaa halkaa aan fadhiyo ilaa dayaxaysa istacaashay bilcilmiga ilaahay sidaasuu u ordayaa girin ilaa uu iga libdhoo madowga galo laydha hirka dambe laydha markuu soo dhaco waan arkayaa waan sii sugaya bal inuu hadday kii halkii hore gaadhiyo inuu dhexda ku joogsado marka gardhadan uu sheegayaa abwaan axmed salaam bide waa sidaas oo kale markay sidaa laydhu kala seexiso ama laydhi baa kala seexinaysa ama sidaynu hore u sheegayna intuu iska baxay oo culayska qaadi waayay ayuu kala dhacay sax ma garanaysaa nacam sida gubanka qaarkii dhul gargoorku siman yahay ama maadhgal diidhay anigu balilahay markiisa halkaas anigu waan ku buuxsadaa halkaa waxaan rabaa inaad dadka weyftiimiso layna waxaa jira kelmado aan la fahmin oo qofka dadkan dee dhegeystayaasha ahee dadkeena dhegeystayaasha ma isibi ku dhaafin maayo samaystaan iyagu erey gooniya iska samaystaan oo dul saartaan heese badan baa jira hees tan waan iska samaystay ama maar galbeed baan dhahdaa dad badan waliba waan anaa iska samaystay heese badan oo kale jira inuu maalin dhexdaas isla soo qaadnay baa jirto oo khatarada herees ay qaado godadle heesta la yidhaahdo sheed ada halkaa anigu waban goraygiisheeda koray goosta geedaha wuxuu gaado wuxuu goosto oo gaagaamiyaba soo inuu gadaal guri nagaadi iyo xudur labada garab geesna way moogtahay way maldahan tahayo qof garanaya unbaa fahmaya imika heesta markaanu dhammayno dib ugu yaro noqon doonaa waxay ka mid tahay farsamooyinka abwaanada hore ay lahaayeen ee ka maqan dhalinyarada imika waxaa lifaysa imika ama maadhgal dhiidho gubatiyo ku taalhawd oo laba gardhood oo berbegeesu seexdeen dharabka iyo geedaha quruxdooda gaarka dhirtu marka ay habeenkii waatan waxay sii daysaa baa la dhahdaa oxygen carbon way qaata maalintiina waxay qaata carbon dioxide oxygen way sii daysaa way neefsanaysaa hadhiyo habeen dhirtu caleentay ka neefsataa dhirtu min allahi marka sida aynu sanka uga neefsanayni afka iyaduna caleentaa uga neefsanaysaa marmarka qaarkood waxaa dhacaya kulaylka energyga ka soo baxaya geedka iyo qabowga isku dhacaya ee dibadda ah waxaa ku dul ilaa caleentii waa biyo markay ka soo baxaan nafsatu way ku fadhiisanayaan waxaa kaloo jirta dhadadu markay dhacdo ee habeenkii ay qabow tahay ay dhadadii dhacayso subaxii biyaha meelaha dhulkii wuu liqaya laakiin meeshii matalan xolobka oo kale ama sallaxa oo kale ama dee caleentii geedku way haynaysaa caleentii iyadiibaa umi bixinaysa marka sida wuxuu liqda caleentu geedku wuxuu wax ka nuugaa xididka ilaahay waa exactly caleentana uu ka neefsadaa biyihii waxaa dhacaysa markaa inay ku dul fadhiistaan dhadadii inay ku dul fadhiisato caleentii oo waagu ugu beriyo qurux marka dharabkii halkaas ka imanaya dharabka iyo geedaha quruxdooda gaarka ama haragan gimano guudka xarfanayso shimbiro ka gigan xarfashadana waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waxa la yidhaahdo waveska ama hirarka baddu hirarkeeda waxaa wada dabaysha mawjadaha badda wadiga arkayoo harooyinkeenii ama dee gal iska caadiyo iskaba furan oo biyo fadhiyaan baliyadii oo kale marka aad fadhiisato laydho markay soo dhacdo garaariya yeelata biyo garaariya yeelata waa xarfanaysaa marka dabayshii baa xarfinaysaa shimbirihii farxad bay dabayshii sanqadhii ka giigayaan nafsud leeyihiinoo kolba intay saa ishaadaan magaranaysaa wax yaroo baalkii midha xareedaadkii ama roobla dhiciya ama wixii magaranaysaa la baxa ayaa markaa hirkii kusoo gaadhaya markaasay koruga yaro waabanaysaa hees dacar sameeyeyoo iyana aad iyo aada u qurux badan oo uu yidhaahdo mooskan xareedii sida mawjadoo kale midafka iska tuurtay soma maqal sida maadhaxoda iyo mahiigaanintu hele waliba mooskan xareedii markaa guud ka xarfanayo shimbirihii ka gige gabadhii kalgacal baa goortan ku eegaba aad qalbigayga gelisa beydka saddexaad wuxuu odhanayaa sidaa tahay gamaan faras qofku markuu ku ammaanayo dee wuxuu isagu jecel yahay buu kuga ammaanaya ama wuxuu qurux badan u muuqanaya marka kulli wuxuu jeclaystay un buu kuga ammaanaya dadkeenana dee xoolaha especially geel oo kale iyo fardaha oo kale iyo
roobka oo kale iyo waxay ahayn wax qaali ku ah dhayda oo kale iyo qof baa dhay lagu amaanaya war caddahay ama saafi baa tahay anigu heesan sameeyay bay ku jirtaa dhaydaasi iyo xareeduba marka wuxuu yidhahdaa sidaa tahay gammaan faras sange geesi daaqsaday sange geesi daaqsaday oo uu garduur miray 30 bilyogeed garduurra waxay ku taallaa dhulka reer Somaliland degaari kamid ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ama kililka shanaad qolba sida u taqaano garduur marka wax weeyaan waa haro wax weeyaan waa ceelasha taxane danood iyo garduur iyo way badan yihiin iyo ciid iyo bay kamid tahay laakiin garduur waxay soo xigtaa xageena way ka sokaysaa sida tahay gamaan farasange geesi daaqsaday oo uu garduur miray 30 bilyo gowgeed uu goobay farowgii sararta iyo gaadada farowgu waxa weeyaan farowgu mar waa dameer dibadeedkii ama waxaan zibraha loo yaqaan xayawaanka weeyaan mar farow waxa la yiraahdaa matalan dumarku marka ay nolol raaxo leh helaan hablaha yaryar ma yeeshaan badana anigu de kulli sidan xikmad ku hayo ka soo gaaray dadkii waaweynaa hablaha yaryar ee guudad kale inta guudad kale farow badana ma yeelato laakiin gabadhu marka ama ay armal tahay ama bade ay nimca kale si ilaahay ugu roonaado ilaahay si kale ugu roonaado ama yara weynaataba ayaa cududaha ay buuxsamto ee jidhkeedu buuxsamo cududuhu waxay yeeshaan baa la yiraahdaa تيح يرير كل سيد عنبوه مركو آذو بسلاده. عنبوه مركو آذو بسلاده فروع عيرير وكلا ويشرع وكلا مقرن إنسان مجد يرير فروع وكلا أي مركو حلا هذا وفرو فرو في صومالي فرو مركا فرسكو وساس ودي مركو وبديستو وحوجيستو فرسكو وحوي شا مركا يسد أصومرن واحد مدة واحد مدة مركا شرطك تفرسكو واحد مدة إنه قرناس حريه لابتيسه يعني قرناس مقرس حرسي قرناسها فرا بدن لها markaad aragto uu fooray uu goobay farowgii sararta iyo gaadada yani waxa weeyaan dhinacaad iska taagtaba waad arkaysaa oo yani de waa wis haya jirkiisi baa is haya uu goobay farowgii sararta iyo gaadada oo muxuu yiri on guluf colaad iyo weli socota dheergelin oo de waxana ka dhici lahaa uu caatoobi lahaa haduu colaad galana ama waran ama dhaawac ama wuxuu baa soo gaari lahaa ama dawuba orodku de ordaya xawaarku jarayo wada dhuban raxaabaha ayaa ay ka bixi lahaayeen waxaan muxuu yiri oo galaba loo raro sida ramad ku yaal dhalay hadba keenta geedale ya salaam yani sida xasan qowdan heestiisa waxa ku jirtay sida geeyo ugu bogeesigu rabaysto geeyo barwaaqa an ka goosanaysa oo gaajo arago galabti la daawado yani halka waa sumar khaati furaysa suugaanteedu waa inay sidaa ama iyadu sumar khaati furtaa ama waa inay heshaa suugaan kale oo khaati furaysa yani marka sida aad heer ka gaadho yani waxaad ka hadlaysaa way saxiixay صحيح جربتها صحيح حق واتشرتها oo galab loo raro sida ramad guyaal hadba keenta geedale sida ramad guyaal dhalay hadba keenta geedale heestaasi de gabadhii hay kal gacal ba goortan ku eegaba qalbigii gelisa Ahmed Saleeban Bidiin ma aha abwaan heesiisa jacaylka ah laga dhamaanayo ama la soo koobi karayo haddii waqtigu inagu samay insha Allah kuwaygii iyo kuwiisa iyo kuwa fanaaniinta kaleba qolada hore iyo qolyahan yagan dambe ee hiigsanaya doonayay inaanu talaabadoodii qaadno doonayana waan soo qaadi doonaa iyo abwaani yar fara badan baa jirto oo deynala jooga qaar halkan inala joogay qaar dalkiiba jooga oo aynu sugantooda aad u jecelahay ayaa jirta marka kuwana insha Allah waan soo qaadan doonaa marka kulli waa sidaad sheegtay lagama gayoonayo waxa weeye badda guuxda niyiri waan bilaalan daray marka de inagu inaynu sii kala daadadina maahan kulliba waxaynu intaynu tirs dulta taydino aynu de dhamaystirayna ma jirto intii laakiin karaankeena in korka xaadirayna waa dadku baynu ku baraarujinayna inaan heesta dhageysan uun ay hoos u eegaan waxay ka samaysan tahay ay ogaadaan hoos u dhaareen waxay heestaas halkaas inoo u dhamaatay hadeerto waan iga carabaabay kelmado maldahan oo abwaanku iyo qofkii meesha garanaya sax una fahmayeen
annagu waxaanu kamid ahay inta ku hafata ama siday doonayaan muuqato marsada marka aniga iyo intan ku jiraba waxaan doonayaa inaad naga jaahil saarto sarbeebahaas iyo dhulkaas dhulada waxa laga yaabaa weligaaba aanad maqlin ama aan anigu kale aanan maqlinba in ay soo marayso marka dhulkii garan maysid cid ku sheegta maad helin adigu halkaad garanaysa in baad ka dhigato ha buuxi meelaha banaan markaad dhigaysaa eedina kama raacayso dhalinyarada matalan inagoo aan ka dhigaynin mawduuc gooniyeenu ka hadlayno haddaan si yar matalan kooban u soo qaado heestaad soo qaaday ilaahay naxariistiisa ka waraabiye maxamed cumar huri oo kale goraygiisheeda koray ama xudurudhe ama guri nagaadi iminka sheekada qofka aan ogeyn waxay ku saabsan tahay iyo waxay tahay xudun iyo guri nagaadi iyo goraygani wuxuu yahay hadduu maqlo goraysheeda koraygida ku yaal wuxuu goosto gaangaambiyaba soo inuu gadaal guri nagaadi iyo xudur labada garab gees u dhaco ma gorfaynin waa wuxuu oranayaa what is he talking what on earth is he talking about waa very confusing marka qofku hadduu waxaanu garanayn ku buuxsado la yaab ma leh waxaa jirtay hees kale oo uu sameeyey nin la odhan jiray cali caataye cali caataye inuu nool iyo inuu dhinto ma hubo naxariista oo loo wada baahan yahay oo ay qaado cashaciga fanaanada la yidhaahdo inay ahayd ruwaayadii farxad waa naxdin baan u malinaya ayaa waxaa ku jirta waxay tahdaa qarka goolanhayd iyo sida qoorigoo kale arrin laba quruumood qalabkay soo haystaan yacni haddii aanad goolanhayd waxay tahay garanayn oo waxay ka hadlaysaa aanad garanayn oo aanad taariikh dhigan ama geography aanad dhigan dee ma garan kartid ma garanaysid waxay tahay isagu wuu garanaya oo wuxuu ugu soo dartay waa loola tus waa garasho intaana waan ogahay weeyaan ma garanaysaa halayga qoro ama dee garasho qofku waxaan dee aan hadal tusaale halkan dhow ka soo qabanaya ama waa wuxuu isagu goobjoog buu ahaa ama waa wuxuu ogaa anigu dagaalkii hore maan jiray dagaaladii hore maan jirin carabtii waxaan ay laakiin kii dambe 74 kii waan jiray aqli badan baan lahayn oo ma garanayo aan ku fahmo heesahan iyo waxaan aan ku fahmo ayaanan lahayn laakiin dee markii dambe aan iskuulka dhiganayay sideetameeyadii iyo bilowgii sideetameeyadii iyo way noogu jirtay taariikhda dagaalkii masar iyo yuhuudda golan heightskana ay ku jira marka qarka golan height iyo sida qoorigoo kale qooriguna waa Suez Canal arrin laba quruumood qalabkay soo haystaan waa masar iyo yuhuuddu dee isdifaacaya marka qoto dheer xaajadu beelad xaajadeennani qoto dheer sida marka Suez iyo Golan Heights Syria iyo Golan Heights waxa isku laayay Syria iyo Yuhuudda Suez waxa isku laayay Masar iyo Yuhuudda marka arrin sidaas oo kale oo cakiran bay arrinteenu u cakiran tahay weeyaan la barbardhiga marka yani waa runay abwaaniintu ma aha inay bi'adii iyo quruxdii iyo af Soomaaliga kaliya garanayaan ee dacdooyinka jira adduunyada ka dhacay waxa la yiraahdaa dating waxay date garaynaysaa heestaada hees uu sameeyay Cali Diiriye nin la yiraahdo Djibouti jooga Cali Gaab ayaa waxa ku jirtay Yan Smith mamuuqden heesta African garanaysaa hees badan buliyo noocaasa Rhodesia ma maageen haddaan midig la siinin marka Yan Smith garanaysaa waa Ian Smith nin la oran jiray oo cadaankii dalka gumaysan jiray marka Yan Smith weliga waxa kelmad af Soomaaliya Yan Smith la yiraahdo yaa garanaya Yan Smith yaa macnaheedu baddoonaysa laakiin hadda Ian Smith taqaanay Rhodesia taqaanay imka waxa la yiraahdaa Maliya Zimbabwe iyo magaceedu laga wada bedelay gumaysigeed waxay date garanaysaa heestaasi xilligii la sameeyay waqtiyeynaysaa oo waqtigaas ahayd arrimo fara badan oo noocaas oo kale ayaa jira waxa kale oo iyana dimeesha ku jirta fanaan abwaanka heesta sameynaya wuxuu yaqaan buu ka sheekeyn jiray ama taariikh ahaan uu soo joogay ama uu akhriyay ama meel uu isagu tagay gubankan iyo geedahan iyo dharabkan iyo baldhiidhkan iyo hawrkan iyo waxaanu ka sheekeynaynaa iyo tigaadan iyo waa indhahooda ku soo arkeen dadkan waa dhulkii geela ku raaci jireen inaan weligiiba Hargeysa ama Burco ama Cergaaba ama Buurama dhinacna u dhaafin ama Laascaanood ma garanayo ama qurbahanba ku korayo isagoo 15 jir ama 14 jir inta la soo dhoofiyay halkii yimiyo aan ogeynba waxaan baa inay adduunka jiraan inay jiraan dantu waxay ku kalifaysaa markaa inuu sankaygii baa tahay labadeedii dalool baa tahay soo manihin ishaydii bidixii ishaydii midig inuu hees ka dhigo isagana dantii baa ku kalifaysaa iyadoo ay sidaa tahay baan haddana dadaal ku yareen oo dee way jiraan aniga kula hadlayaaba jacayl iyo lix jeclo aan ka qaba afka iyo dhaqanka baa diigu kaliftay inkastoo nin weyn markaan dalkii ka yimid de haddana weligii habeen mii kama soo toosin laakiin haddana dhegtii baa meel walba taal
dadkii baad la hadlaysa kaa waaweyn ishiyo dhigta baa la yidhi dhigta da'weyn dhigta da'weyn marka waxa weeyaan dadkii baad wax weydiinay haddaad istaado wax walba aniga aqaan imika waxaa jira kuwo aan soddonka u buuxsamin oo u haysta inay cid walba ka sarreeyaan oo cid walba ka aqoon badan yihiin waa isqardhaaf hadday run tahay oo aad cid walba ka aqoon badanta ilaahay ha kuu siyaadiyo ha ku hibayo laakiin marnaba ha odhan adigu anaa cid walba ka wanaagsan anigaa wax walba aqaan marnaba yaan lagaa maqan waayo adduunka isqardhaaf badan there is always a room for improvement bay yidhahdaan nimankii hore u gaadhay dayaxatigi arki maysa xasan geni ole anaa wax walba aqaan hadraawi ole ina salama bindoole saxardiid jabiya hargeysa jooga saxardiid jabiya oo la da'ahaa ilaaha u naxariistee ismaaciil cagaf iyo iskuullada haayeen iyo xudaydi iyo ragga ayaa hargeysa jooga hargeysa maanta jooga kana maqli maysa arki maysa saxardiid jabiya oo saxaafadeed qabanaya oo la suganteedii baan ka sheekeynaya waxaan qabanaya waa amar ilaahay kuwii yareerana khaatib loo joogo YouTube haddaad gasho heesaagina kuna qababaxdii baa qanaayada iyo qofka maartay iyo waa loo kala dhashay kullayba dadku way kala qanaayad badan yihiin qofka ilaahay hibada siiyay is og inuu hibada leeyahay ma hore ma soo baxo is og yahay iska marka kullayba barnaamijyadan san mar walba sheego ama barnaamijyada horeba inoogu soo sheegay koow iyo laba ma joogno maxamedow waa nin la sugayo wadna yaad sugi marka kullay adiga iyo inta kula midka aba waxaanu doonaynaa ama halkan ha ahaato ama meelo kale ha ahaatee intay hayaan inay bulshadooda usoo bandhigaan marka kolley waynu ku noqon doonaa mar labaad haddii ilaahay yidhaahdo iyo mar saddexaad baynu la faguri doonaa intaasaynu kusoo gebagabaysanaynaa barnaamijkan haddii ilaahay yidhaahdo kolleyba dadkana barnaamijyadii hore aynu ugu ballan qaadnayo waxay ila tahay daawihii imika waa kasoo degtay daawihii imika way soo dhaaftay iidaankii daawi waa laga soo qaaday marka waxaad noogu iidaanto un baynu sugaynaa haddii marxaba insha allah ama heembaad noogu iidaani ama sixinbaad noogu iidaani ama maxay ahayday waxaad noogu yimaadeen muxuu ahaa iiga soo galay wax wanaagsan bay insha Allah noqonaysaa in badan baynu sugnayo wax badan bay insha Allah noqonaysaa bismillahi kariim waan lagu mina fadhiyaa aad baan kuugu mahadnaqayaa Caasha iyo farsamayaqaankeena Cismaan Qays dhammaan qaaliga ah ee dunida barnaamijka dadkiisa oo dhanba waynu salaamayna dhammaantood aad baad u mahadsan tahay dhammaanteenba annagoo isku duban waxaanu idin leenahay intaas ayuu barnaamijkii inoogu dhamaaday intaynu mar dambe hawada ku kulmi doono haddii Allah awood la yiraahdo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh